waa maalin ka mid ah maalmaha bisha Ramadaan waana maalintii ugu horeysay bisha Ramadaan. Familkan waxa ay u soo fadhiisteen si ay u cunteeyaan oo afurkii ay u soo diyaarsadaan, laakiin cuntadoodana waa cunto aan aad u fiicnayn oo adag. ninka qoyskana maxaajiga qoyskana culayskana waxa uu sii koray culays kale oo ah inuu ka fikirayo warkii dhex maray isaga iyo ninkii guriga lahaa ee ahaa in uu kirada uu ku lahaa waqti dhowna uu ka doonayo. aad ayaa uuna uga warwarsanaa kirada maxaa uu sameeyaa ninkan miskiinka ah ee faqiirka ah ee aan helinba hodmo cunto ah oo uu cuno. waxa uu ka maqlay dibadda cod ka soo yeeraya, codkaasina waaba qaylada ninkii gurigan lahaa. guriga ayaa Allah ku soo galay albaabka isaga oo aan soo idan qaadan, isaga oo aad isu weyneynaya, xanaaqsan oo qaylinaya. qoyskii ayaa aad u naxay, isaga oo aan salaan iyo dhinac kale u jeesan ayaa dagaal waxa uu ku bilaabay ninkii miskiinka ahaa ee guriga kugu jiray. dhulka ayaa una ku jigay, laag ayaa una la dhacay. qoyskii kalena qaylo ayaa ay bilaabeen, ilmihii iyo xaaskiisii iyaga oo leh xasbuna allahu wa ni'mal wakiil. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. kadib markii uu aad u garaacay una xanuujiyay ayaa uu guriga ka tegay, laakiin waxa uu guriga ka sii qaatay wixii alaab qadiim ahayd ee guriga u taalay oo dhan. aad ayaa uuna u xanuunsanayay miskiinku, sida meydka oo kale ayaana guriga ugaga tegay. waa la eedaamay salaadii maqrib, waana maalintii ugu horeysay ee Ramadaan, waxaana ay gaadhay waqtigii la ijaabayay ducada. labada gacmood ayaa uu kor u qaaday, waxauna yidhi Allahumma intaqim min, ilaahow iiga aargud. ilaahay ayaa u dambi dhaaf weydiistay, waxauna ku soo celceliyay dikriga ah laa xawla walaa quwwata illaa billah. 3 cisho ama 3 maalmoodba kama soo wareegin, waxa uu lugta ka dareemay xanuun aad u daran. dhakhtarka ayaa uu tegay, dhakhaatiirtiina waxay u sheegeen inuu ku dhacay xanuunka kansarku, waxaana lagama maarmaan ah in laga jaro lugta. waxa uu ka soo baxay dhakhtarka isaga oo lug kaliya ku socda, oo lugtii kale laga soo gooyay xanuunkaas daraaddeed. lugta laga gooyayna waxa ay ahayd lugtii 3 maalmood ka hor uu ku garaacayay ninkii miskiinka ahaa ee guriga kaga jiray. xaaskiisa ayaa waxay u sheegtay in halka laga soo raacay ay tahay ninkii uu maalintii dhoweyd garaacay ee ku duleystay qoyskiisa hortiisa ee aanu sinaba ugu naxariisan. waxayna xasuusisay xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ittaqi dacwata almadluum fa inna laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. waxayna u sheegtay inuu ninkaasi u tago cafisna uu weydiisto, uuna ka raaligeliyo caydii, jirdilkii iyo ihaanadii uu u geystay isaga. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. waxa uu ku qancay hadalka xaaskiisa, waxauna u tagay qoyskii uu duleystay hadda ka hor. waxauna gurigii u dhigay alaab iyo gogol cusub, waxauna ka codsaday inaanay waxba aanay ka bixin gurigaasi. ninkii ayaa uu u tagay, gacmaha ayaana ku dhukaday, waxauna weydiistay dambi dhaaf iyo saamax.